Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow janaalka dhakhtarkaaga. Fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka kusoo biir oo subscribe saar si aad ula socotid muuqaalada cusub. Muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa dawooyinka loo yaqaano antimicrobial agents oo ah dawooyinka ka hortago ilma aragtida ama microorganismska. Antimicrobial agentska kuma soo koobi karno hal muuqaal, laakiinse waxaan ka bixi doonaa overview ama sharaxaad kooban sida caqabadaha ka dhalan karo antimicrobial agentska maadaama ay yihiin dawooyinka loo yaqaano under prescription oo muhiim ay tahay inuu dhakhtar ku qoro. Marka hore aan u nimaano waa maxay antimicrobial agents. Antimicrobial agentska waa dawooyinka ka hortago ilma aragtida ama microorganismska. Ilma aragtida sida bakteeriyada iyo viruska iyo funguska iyo wixii la mid ah. Marka ereyga antimicrobial agentska ayaa waxaan u kala qaybi doonaa laba qaybood. Qaybta hore oo ah anti oo macnaheedu tahay ka hortag, iyo qaybta dambe oo ah microbial agents oo macnaheedu tahay microorganismska ama ilma aragtida bini'aadamka soo weeraro sida viruska, bakteeriyada, funguska iyo wixii la mid ah. Sidaan hore usoo sheegay, dawooyinkan antimicrobial agentska waa under prescription oo waa inuu dhakhtar kuu qoraa, ma ahan sida xanuun baabi'iyaasha oo waqtigaa doonta isticmaalaysid. Haddaba antimicrobial agentska waxaa u kala qaybi doonaa ilaa dhowr qaybood. Number 1, mode of action ama habka ay ficilka u sameynayaan. Habka ay ficilka u sameynayaan dawooyinkan waxay noqon kartaa inay noqdaan bactericidal oo ah in ay bakteeriyada dilaan, iyo bacteriostatic oo ah in ay joojiyaan koriinka ay bakteeriyadaas ay wado. Number 2, according to microorganism they act oo ah iyadoo loo eegayo microorganismska ay la falgalayaan, sida antibacteria oo ah dawooyinka ka hortago bakteeriyada sida penicillin iyo amoxicillin, iyo sidoo kale antifungal drugs oo ah dawooyinka ka hortago funguska ama fungalka, iyo sidoo kale antiviral drugs oo ah dawooyinka ka hortago viruska. Sidaas si la mid ah antihistamine iyo antiprotozoa oo ah dawooyinka ka hortago histaminka iyo protozoaha. Number 3, antimicrobial agentska waxaa sidoo kale u qaybi karnaa ama loo eegi karaa nooca bakteeriyada ay dilayso oo ah spectrum activity. Spectrum activity wuxuu noqon karaa laba qaybood oo ah narrow spectrum iyo broad spectrum. Marka waxaa muhiim ah inaad ogaatid si guud ahaan bakteeriyada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood, gram positive bacteria iyo gram negative bacteria. Marka dawada aad qaadatay haddii ay dilayso gram negative bacteria oo kaliya, waxaynu dhahaynaa waa narrow spectrum, waxaana ka mid ah dawada loo yaqaano penicillin G. Laakiinse haddii ay dawadu dilayso labada qaybood ee bacteria oo kala ah gram positive bacteria iyo gram negative bacteria, waxaynu dhahaynaa waa broad spectrum, waxaana ka mid ah dawada loo yaqaano tetracycline. Sidoo kale antimicrobial agentska ama dawooyinka ka hortaga ilma aragtida waxaa loo qaybi karaa iyadoo loo eegayo mechanism of action ama habka ay wax u qabanayaan. Waxaa ka mid ah number 1, cell wall synthesis inhibitors oo ah dawooyinka joojiyo inuu unugu u sameysmo cell wall. Si basic ah waxaan ognahay inuu unuga qaybtiisa sare la dhaho cell wall oo ah qaybta sare ee difaacda unuga. Marka dawooyinkan waxay joojinayaan inuu unugu u sameysto xuub sare oo iskaga difaaci karo waxa soo weeraray bakteeriyada ama viruska oo waxaa loo yaqaanaa cell wall synthesis inhibitors. Sidoo kale waxaa jira nooc loo yaqaano cell membrane integrate distribution oo ah in ay joojiyaan kuwan cell membrane-ka ama dahaarka labaad ee unuga. Sidoo kale waxaa jira kuwa loo yaqaano nucleic acid synthesis inhibitors oo waxay joojinayaan inuu unugu u sameysto nucleic acid, taasina waxay ku sababaysaa inuu seelka si guud ahaan u dhinto. Sidoo kale waxaa jira kuwa loo yaqaano protein synthesis inhibitors oo ah kuwa joojiyo inay unugu u sameysmo proteinska. Waxaan ognahay in qayb ka mid ah unuga oo loo yaqaano ribosome oo ay sameyso proteinka seelka loogu baahan yahay. Marka waxay sameynaysaa inay ku dhigto qaybtaas oo ay joojiso proteinka uu sameyn lahay unuga. Iyo qaybta ugu dambeysa oo ah protein pathway inhibitors oo waxay joojinayaan metabolismka ka dhici lahay seelka. Aan u nimaano complicationska ama caqabadaha ka dhalan karo dawooyinkan. Complications of antibiotic therapy. Dawooyinkan waxay yeelan karaan caqabadooyin badan ama dhibaatooyin fara badan
waxaa ka mid ah number kow resistance oo ah inay dawada la qabsato jirka oo waxba ay ka tari wayso qofka. Resistance inay noqoto dawada waxaa sababayso inaad dawadaas waqti badan aad qaadatid. Marka resistance wuxuu ku dhacayaa inay isbedelaan target site-ka dawada antibioticska oo dawada halka ay ku dhig lahayd ama site-ka ay binding ku sameyn lahayd haddii isbedesho qofkaas dawada waxba kama tarayso. Iyo sidoo kale in ay yaraato awoodda uu cell-ku wax u ku hay lahayd. Number 2 caqabadaha ka dhalan karo waxaa ka mid ah hypersensitivity ama allergic oo ah xasaasiyad uu qofku ku yeelanayo dawada, gaar ahaan dawooyinka loo yaqaan penicillin-ta ayaa inta badan sababta xasaasiyadda. Marka waxaa habboon in uu qofka markuu isticmaalayo dawada uu sameeyo skin test oo laga tijaabiyo qofkan inuu dawada uu ku yahay allergic ama inuusan ku ahayn. Number 3 toxicity oo ah sumowga oo qofku uu ku sumoowayo dawada. Dawooyinka antibioticska oo sababa sumowga waxaa ka mid ah dawada loo yaqaan aminoglycosides oo inta badan sababta in qofku ku sumoowo dawada. Halkaas ayaan ku soo koobaya muuqaalka. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, muuqaalkana like saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.